gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa maanta xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland u diray baaq ay ugu baaqaso inay wax ka qabato maayirkii hore ee degmada Caynaba ee Ismaaciil Khaliif Ismaaciil Saleebaan iyo qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka Qorlugud oo muddo 20 cisho si sharci darro looga kaxaystay deegaanka Coodale isla markaana loo dhaadhiciyay jeelasha Jigjiga waana kuwan iyagoo ka hadlaya baaq uga direynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo laga qabtay maayirkii hore ee degmada Caynaba iyo xubno kale oo la socda deegaankayaga laga qabtay magaalada Coodale buuqoodle la geeyay hadeerna waa sii wada Jigjiga waxaanu qayladhaan u direynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ay ka hawlgasho kuwaas oo aan lagu nusbayn karin argagixiso iyo wax kala toona waxaanu leenahay Jamhuuriyaddu ha ka hawlgasho oo sida ay tahay haw baadi doonto waxna uga qabato arrinta xaaladda inta leeg uga xunnahay falka hore ee lagu qabtay dadka muwaadiniinta ee mas'uuliyiinta ee deegaanka ka tirsan ama maayir ha ahaato ama ganacsato ha ahaato muddo badan ka shaqeynay deegaanka waxtar weyn iyo maamuusna runtii ku lahaa deegaankan aynu ku noolahay aan ka hadlayno iyo dadka muwaadiniinta ee u dhashay gobolkan Saraar oo laga qabtay magaalada Beledhig Coodale oo ka mid yahay maayirkii hore degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleebaan iyo ganacsatada ka tirsan reer Qorlugud muwaadiniinta Soomaaliland ee Jigjiga ku xiran in si degdeg ah looga hawlgalo soo deyntooda nin oo ahaa Khaliif Ismaaciil Saleebaan oo Caynaba ka soo raacay maayirkii hore Caynaba iyo nin ganacsada ina gees leeyahay oo isna reer Qorlugud muddo waxa lagu hayay buuqoodle adeerna Jigjiga loo gudbiyay dawladdu waxaad moodaa inay ka gaabinayso